ciidii maadaama nagu soo dhowdahay oo soonkii aan soomanayn ciidiisa ay eega nagu soo dhowdahay in nin walba u diyaar garoobo ciidaas sidii nabad loogu ciidi lahaa ummaddu ciid farxad leh oo fiican siduu nin walba ehelkiisii iyo dadkiisii iyo awlaadiisii iyo ciddii qaraabadiisa ay ahayd nabad ugu ciidi lahayn in ay ummadda deegaanka ku nool ee Soomaalida dhammaan iyo wixii muslina oo dhani inay ciid farxad leh ciidaan ciidana cid walba nabadgelyada magaalooyinka ama deegaanka ama caasimadda sidii loo sugi lahaa ciid farxad leh aan ugu ciidi lahayn inaan ka wada shaqeyno ayaan ummadda muslimiinta ee Soomaalida ee deegaanka ku nool aan u soo jeedinayaa waad ogtihiin iminka Etoobiyada galbeed waxa ka socda ama Gondar ama meelaha kale ee magaalooyinka kale taas ma aha mid fiican oo dadku inay sameeyaan ku waajibta ma aha waa arrin xun dadka sameeyayna waa dad xun waan ka xunnahay in ummad islaama la qalqalo oo dhib loo geysto aad baan uga xunnahay ilaahayna samariyo iimaan ka siiyo ehelkoodii iyagana naxariis janna ka waraabiyo dadkii falkaas sameeyayna dad xun oo in sharciga la keeno oo talaabo laga qaado ku waajibo weeyaan dawladda Itoobiya ama dawladda federaalka ana waxaan ugu baaqayaa in dadkaas ummadda muslimiinta ah taadiga u geystay ama gifka u geystay in talaabo cad oo degdeg laga qaado arrimahaas diintii inay inaga magaalooyinkeena ay soo saameyso oo aynu ciideena inagu khalkhal gelino oo nabadeena inagu khalkhal gelino dhammaan ummadda muslimiinta iyo ummadda dadka ku nool magaalada Jijigi iyo deegaanada kale inay ka hortagaan wixii falalka fulinaya cid walba gurigeeda iyo aageeda iyo magaaladeeda ay ilaashato dadka masaajidka gubay dadka kaniisadaha gubaya dad diin lama aha shalay kaniisadaha la gubay meelaha qaarkood daraadna masaajidada la gubay marka dadka masaajidada iyo kaniisadaha ku wareegaya dad ama gaala ah ama islaama ma aha ina ummadda anu waxaan sheegayaa dadkeenu Soomaalida inay ogaadaan dadkaas inayna dad diin la ayna ahayn oo ama kristaana ama muslima waa dad siyaasad iyo in ay carqalado abuuraan oo nabadgelyo la'aan ay ka dhacdo wadanka oo siyaasad dhabarka ku sida weeyaan taasna tu inaga dan inoo ama aha tu inaga wax noo tare ma aha haddaan maanta kaniisad gubno iyo haddaan ruux kristaana dilo waxa inoo qabiyo waxa inoo aakhiro ku heli midna ma jirto ummadda inagu dhaxlooleed ee gaal iyo islaam ee wadankan ku nooleedna say ugu noolaayeen nabadgelyada ahayd aynu isla noolayno inaan isla noolaano nabadgelyada magaaladeena aynu ilaashano dhibkan iyo dagaaladan iyo waxaan imika ka socda galbeed iyaga way cusub yahay inaga laakiin 30 sano ee soo dhaafay waxayna mar weyn ogeyn in meelahan meedka la soo jeeday in ruuxaad garanayso hebel aad u garanayso inta la soo qaado meedkiisa gawaarida lagu jeeday waad garanaysaa in horteena lagu tooganay in walba gurigiisa hortiisa lagu tooganay waad garanaysaa dadkan imika meelaha ay ka dhacayaan ama Gondar ha noqoto ama Silta ha noqoto ama meel kale ha noqoto dagaaladan iyo waxana wixii inuu ku jiray imika iyo ku jira marka dagaal iyo nabadgelyo la'aan dhibka ay leedahay iyo kharaadka ay leedahay ummadda Soomaalida way ogtahay iyo wixii soo maray marka tii aynu soo dhaafnay dadka inagu celinayay abaabulka iyo balaayada wada waa dad iyaga ay dan ugu jirto nabadgelyo darradu diinteena aan ilaashano dhaqankeena aan ilaashano wadankeena aan ilaashano cidii kale ee diimaha kale leh inagu dhaxnoolna si nabad ay inagu dhaxnoolaato ayaan anigu ummadda Soomaaliyeed u sheegaya
midna waa in la ogaado mudaaharaad haddii la mudaaharaadi sharcigu wuu ogol yahay intaad weydiisato inaad mudaaharaaddo ood u sheegto maamulka meesha ka jiro dastuurku wuu ogol yahay laakiin wax aan mudaaharaad ahayn oo guruuba oo rabshad keenaya oo dil keenaya oo xoolo burburin keenaya iyo dadkeena ku dhaqmaya meel kasta oo shalay waad arkayseen Addis Ababa Harar waad arkayseen Dirdhaw waad arkayseen wax dhagax tuuri muuna jirin wax guriyo la jabin muuna jirin wax isdiriro is dhagax tuuri muuna jirin kaniisada dhagax tuuri muuna jirin ficilkooda ay muujinayeen marka cidda noocaas ah inta dastuurka soo marto sharciga soo marto hay'adaha amniga iyo dawladda inta u sheegto si nidaama fikirkeeda ku gudbinaysa cid inay diidaan ilaa maaha laakiin dad aan la garanayn oo siyaasad kale iyo inay wax dhacaan wax burburiyaan magaalo gubaan rabshad abuuraan raba oo siyaasad iyo la soo diro waxweeyro lacag la siiyo inay magaalooyinkan gubaan nabadeena ay ka hor yimaadaan khalqan in geliyaan inaynu kulligeen ka wada halganno oon taas ayna ahayn islaamnimo kulli ummadda Soomaaliyeed nin waliba cidda falalka xun wadda ee media dadka ka kicinaysa waxaan jirin abuuraysa ummadda dhiiga ku kicinaysa inay diinta intay u dhaxmaraan ay dhulkooda inay gubaan raba ummadda wada noolashahay wada nooleed inay isku diraan raba inaan ka hortagno ayaa loo baahan yahay ciid baa inuu soo dhow farxad baa inuu soo dhow cidda soonka ah soo ummadda Soomaaliyeed ee bisha Ramadaan Soomaaliyeed maalinkooda ciid eegayna soo gaaraysa ama bari ama saadamba inaynu farxad leh aan ku ciidno magaaladeena aan ilaashano nabadgelyadeena aan ilaashano ciddii fal xun sidana kulligeen aan ka hortagno hay'adaha amniga aan garab istaagno ayaan anigu ummadda Soomaalida ugu baaqaya iyo wixii ku nool deegaankeena hay'adaha amniga waxaan u sheegayaa meel kasta ay joogaanba inay amniga deegaanka iyo dadweynaha nabadgelyadiisa ay sugaan ciddii khalkhal iyo been abuur iyo balaayo iyo dab inay dhexgeliso doonayso ummadan nabadda ku nool nabadda ku soomaysa inuu ciidamadu hay'adaha amniga kala duwan ay si toosa uga hortagaan amniga ay sugaan ayaan ku amraya annagu ka ciidan ahaan waxaan u sheegaynaa ummadan iyo dadka falalka xumada inaan ummadanada nabadeeda ilaalinayno magaaladanada nabadeeda ilaalinayno ciddii nabadgelyadeena iyo horumarkanaga ka xunna aanu tallaabo sharci la ka qaadano